السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا ذا سلامي دمانتين ميل والبعد جوجتان sidaan hore idinku sheegayba maalinka jimcaha waxaan soo jeedin doonaa qisooyin dhab ah oo dhacay. qaarkood waxaa ka sheekeynaya dadkii ay ku dhacday, kuwana dadkii goobjoog ka ahaa. maantana waxaan bilaabi doonaa barnaamijkaas oo ahaan doona taxane oo aan soo jeedin doono maalinka jimcaha oo keli ah. marwo carab ah ayaa waxa ay xanaaneyn jirtay gabadheeda, waxaana la dhihi jiray Hindo. waxayna guriga ugu keentay naag si xanaaneyso xilliga ay shaqada ku maqan tahay. naagtaasina waxay ahayd islaam. bil kadib naagtii waa ay isku dhaceen, waa ayna burisay. 2 isbuuc kadib haddana waxay keentay naag kaleeto oo la sii joogto xilliga ay maqan tahay. naagtaasi ma aysan ahayn naag islaam ah. maalmo kadib waxay jebisay saxankaasna wuxuu ku fadhiyay qiimo qaali ah. marwadii ayaa ku dhufatay gabadhii dharbaxsho daran. dharbaxshadaasna waxay ahayd ciqaabtii ugu horreysay ee gabadhaasi marto. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. gabadhii ayada oo ooneys waa iska soo baxday qolkeeda ayayna iska imaatay. mar walba oo ay aragto marwada wejigeeda waxay u fiirin jirtay nacayb iyo cufnaan, waxayna u sii qaadi jirtay cuqudad. mar laga soo wareegtay 2 sano, Hindo waa ay iska hilmaamtay waxyaabihii horeeto, dharbaxshadii iyo waxyaabihii ka dambeeyey, balse gabadhii shaqaalaha ahayd ma aysan hilmaamin waxyaabahaas. Hindo waa ay iska bixi jirtay shaqada, ay iska aadi jirtay wax walba. gabadheedana way ka tagi jirtay. dhowr maalmood kadib hooyadii gabadheeda waxay ku aragtay habeenkii ayadoo oonaysa. maalinkii dambe shaqadeeda waa ay ka daaday, mana aysan bixin. waxayna aragtay arrin ka yaabisay. gabadheeda oo dhehayso iga dhaaf, waxaani waa xanuun. waxayna samaynaysay sanka ay ka gelinaysay gooryaan. hooyadii waa ay soo qaaday isbitaalka ayayna keentay, balse dhakhtarka ma uusan badbaadin karin. gabadhiina sidaas ayay ku dhimatay.